shirkadaadkan aanu qabanayno runtii waxaan ugu kalifay mahadnaq iyo inaanu ku soo bandhigno shirkadda Wasac Construction oo hadda sanadkan cusub 2018ka aanu aasaasnay oo ku daray shirkadda aynu Wasac aasaasantay 1995 bishii 13 iyadoo marba shirkadda Wasac aan wax ku soo kordhinayno sanadkan 2018 waxaan ku soo kordhin qaybta dhismaha marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa customer-ka kala duwan Wasac Construction Wasac Fuel Station company-ga Wasac farc kasta lahaade customer-kiisa kala duwan qaybta hay'adaha dawliga hay'adaha maxalliga iyo shacabkaba waxaanu leenahay aad iyo aad bay u salaamantii wana ku mahadsantii company-gana halkan customer-nimadiina uu ku soo gaadho aad baad ugu mahadsantii su'aasha aad cali daahir weydiisay waxaan ugu talagalay walaal qof kasta ama qurba joog ha noqdo ama qolqol joog ha noqdo waxaan ugu talagalay naqshad qancisa iyo dhismo qanciya iyo in aanu qofka aan waxba qabsanayn dalka doonaya inuu indheeyo inaanu dadka dalka wixii aan xog ku dhaano aanu ka siino jeclaysiinana dadka qurba jooga khaasatan inay dalkooda jeclaadaan waxaan u qabanaynaa wax raali geliya ay noqdaan naqshadana qof walba waxaan u ballan qaadaynaa naqshada uu keensado aan waxba ka bedeleen inaanu qabano insha Allah ta'ala anagoo dadka aqoonta u lahaana ay shirkadda wadaan oo ay joogaan qaarna inaan fadhiyaan qaarna inaga maqan yihiin runtii waxay naga maqan injineerkii shirkadda Maxamed Cabdi Xasan codkiisana anigoo ka hadlaya waxaan u qaban doonaa naqshad kasta ay doonaan runtii waxa naga go'an qofka hadii uu ganacsi wax ka dhigo oo qorshihiisa qura eegto ganacsigu siima socdo inta qofku wixiisa hagaajistaa isaga ayay ugu jirtaa anagu loo intaan inaan waqti dheer shaqeynaan doonaynaa runtii ballankana qofka waqtiga aan u qabanayna waa waxbaan ugu dhammaynaynaa waan ugu ballan qaadaynaa nimankaas 6 bilood ama 7 bilood oo company-ga aan wadno dhismaana ilaa 30 mashruuc ayaanu gacanta ku qabanay mid walba muddadiisa ku dhamaaday waxaan doonaa loo intaan inaan shaqeyno insha Allah ta'ala laakiin aan wax yar qaadano oo baa mushtari ma doonayno waxay ka kooban tahay qaybtii warshada aynu tagnay oo laba qaybood u shaqeysa oo samaysa bulukeedka waaweyn lagu dhiso dabaqyada iyo bulukeedka guryaha caadiga lagu dhiso labada makiinadood iyo labada warshadood baad arkaysay iyo qaybta buildingka qaybtii dhismaha kamid ah jiingada iyo qoriga iyo wixii dhis ahaa ee guriga gelayay waxay ka kooban tahay warshadii albaabada iyo samaynaysay daaqadaha iyo wax alaale wixii geedharka iyo wixii ay u baahan tahay oo gaadiidkeedii wada arkaysay inaan u qaban doono shaqo hufan oo tii ay raali gelinayeen waxaan ugu baaqaynaa inay nala shaqeeyaan mar haddaan company cusub nahay ayna tijaabiyaan sida aanu shaqeynayno si hufan qof walbana waxaan ku ballanay aan qoraal ku kala sameeysan iyo waxaan ku kala walaan aan fulin doono